أولا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي قول دكتور نصر علمي عبدي أنا أساسا حرونتا Somali Health Care Center. وصومالي Health Care Center وحرون بحيثو أديك عافماد waxaana bulshada ku soo kordhinay saddex fikradood. Fikradda koowaad oo ah in qofku uu helo hal dhakhtar hal hospitaal. Fikradda labaad oo ah in shakhsi walba muwaadin walba Soomaaliyeed ku nool Muqdisho waaxigeeda inay helaan kaarar ka turjumaya dhiigooda nooca uu yahay. Sidoo kale waxaan soo kordhinay la talin ama wacyigelin aan u sameynayno hooyadii dhalaanka. Anaga waxaan xafiis ku leenahay Taleex agagaarka Xayaat Mall. waxaan ku jirnaa campaign ama ololo aan ku aruurinayno contribution ama wax loo yaqaano saacideen. Saacideyntaasna waxaa ugu dulneelnahay ama aan ula jeednaa waxay tahay in la taageero fikraddaas aan dalka kusoo kordhinay. waxaana shaqo ahaan ama shaqaale inoo shaqeeya xarunta 32 ruux. 32daas ruux oo u tababaran adeegyada anaga aan bixino. waxaan u baahannahay hadduu Allah awoodi karaa noqdo in fikraddan fikrada ka sii wacan bulshada Soomaaliyeed aan ka saacidno aan ka taageerno shakhsiga ama sidoo qofka hal dhakhtar hal hospitaal uu heli karaan. waxaan isbitaalaadka magaalada Muqdisho waaxigeeda ka soo codsanay inayna siiyaan services isbitaalka uu bixiyo ama adeegyada isbitaalka uu bixiyo qaab free ah ama qaab bilaash ah iyo sidoo kale qaab discount ah ama qiimo dhimis ah. dhammaan isbitaalaadka wayna soo dhaweeyeen kuwooda ugu badan. bulsho qaarna way ka faa'iideysatay kaarkan hadda waxaan ku bixinaynaa 1000 kaar for free si mujtamaca Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho waaxigeeda inoogu bartaan adeegyada aan bixino. hadda ka xarun ahaan waxaan u baahannahay taageero dhaqaale. waxaan ka heli karnaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin dunida. waxaan ku jirnaa adeeg la yiraahdo Kaal Dhoodso ee bixiso ama hoostaga jaamacadda Simad. meeshaasna waxaa ku jira fikrado ama araah badan ee dhalinyarada Soomaaliyeed kusoo gudbisadeen in lagu taageero. anagana qayb ayaan ka nahnay adigoo eegayo mujtamaca Soomaaliyeed eegayna aayaha caafimaad ee dalka. waxaana kaa codsanaynaa muwaadinka Soomaaliyeed inaad nagu taageerto hadba waxaad awoodo lacag ah ha ahaato 25 ilaa iyo wix ka badan. sidoo kale waxaan codsi ama baaq u jeesanaynaa hay'adaha maxalliga ee ka howlgala dalka, dowladda iyo sidoo kale shirkadaha iyo ganacsatada kala duwan ee dalka inay nagu taageeraan horna u sii socono. dhiirigelintiina waa inoo muhiim. aad u mahadsantiin.